waxay isbarteen wiil ay wax isla baranayeen, wayna ka heshay, waxayna u sheegtay hooyadeed. Asalaamu calaykum saaxiibadeena ku xidhan kanaalkeena Garaad Koriye. Waxaan ahay Dembi Baadhe. Magacaygu waa Maahir. Maanta waxaan idinka sheekeynayaa qiso galgashay magaalada. Qisadu waxay ku bilaabantay Faadumo. Faadumo waa gabadh dhigata dugsiga dhexe. Waxay la nooshahay hooyadeed ee ka dhigato saaxiibadeeda kale. Kadib dhimashadii aabaheed, waxay ahayd Faadumo hooyadeed ma siisa xorriyad aad weyn gabadheeda. Waxaana yaqiinsatay inay meesha ka baxday xanaaneyntii aabaheed xanaaneyn jiray. Waxba ay baranaysay, dhinaca kalena waa ay shaqaysanaysay. Waxaanay ka shaqaynaysay qoritaanka wararka. Kadib shaqadeedii aadka u badnayd, waxay heshay lacag aad u badan dhammaadkii bisha. Hooyadeed waxay ahayd mid ku faanta gabadheeda. Faadimo waxay isbarteen wiil ay wax isla baranayeen, wayna ka heshay, waxayna u sheegtay hooyadeed. Hooyo, waxaan doonayaa inaan wax kuu sheego, laakiin waan kaa xishoonayaa. Maxaad ka xishoonaysaa? Miyaanan ka odhan iga soo qaad saaxiibada oo kale mar kasta? Xaqiiqdu waxay tahay waxaan isbaranay wiil aan isla dhigano dugsiga. Aad ayaan u jeclahay isaga. Taas waa gabadhaydii yarayd. Waad weynaatay, waxaanad noqotay mid wax jeclaata sidoo kale. Waa ayo wiilku? Waa Daariq. Waxay joojisay dhoola caddaynteedii, waxaanay tidhi, wiilkaasi waa wiil aad u kibirsan, wuxuuna cabbaa khamrada tan iyo yaraantiisii. Kuma oggolaanaya taa, waa inaad iska ilowdaa isaga. Ha ku xukumin hadallada dadka. Aad ayaan kaaga ogaal badanahay isaga. Waa qof furfuran. Kaali Faadumo, aan cashada diyaarinne, iskana ilow arrinka. Faadumo waxay hoos u tiri, saaxiibaday ayaa tahay, mana fahmaysid waxaan dareemayo. Mar dambe kuma sheegi doono waxaan sameynayo. Waa inaad muraajacaysaa casharadaada. Imtixaankii uu soo dhow yahay. Faadumo waxay ka caawisay hooyadeed samaynta cashada. Ka hor intayna seexan waxa ay ku tidhi hooyadeed, waxaan doonayaa inaan booqdo subaxda saaxiibaday Sahara, si aan wax iskula akhrisanno. Ayna igu sheegto wixii aan fahmi waayey. Haye, waa inaad u tagtaa markaad ka timaado dugsiga. Subaxdii xigtay, Faadumo waxay tagtay dugsiga. Kadib dugsiga si ay ugu tagto saaxiibadeed Sahara. Habeenkii ayay gaadhay, kumayna soo noqon guriga. Waxaa laga yaabaa inay Faadumo ku dheeraato dhigashadeedii, ayna hoos u eegin saacadda. Dhib ma leh. Waxay caadaysatay inay la seexato Sahara. Waa ay nasataa xilliga ay booqato iyada. Hooyadii waxay qaadatay telefoonkeygii, waxayna wacday Sahara, laakiin kama ay qaban. Sax, kuma degdegayo, waxaanan eegayaa beritoole. Subaxdii xigtay, Faadumo hooyadeed waxay soo samaysay shaah, waxayna sugaysay gabadheedii, laakiin ma ay soo noqon. Waxay wacday Sahara, laakiin kama ay qaban telefoonka. Aad ayayna u murugaysnayd. Waxay u soo orday xagga iyo gurigii Sahara, waxayna qaraacday albaabka. Waxaa ka furay hooyadeed. Soo dhow Faadumo hooyadeeday. Maxaad iigu timday aroortan hore? Haway Faadumo. Halkeen ku ogahay iyada? Miyaana idinla joogin habeenkii ugu dambeeyey? Maya, ma arag Faadumo muddo usbuuca. Laakiin waxay iga dalbatay inay wax la akhrisato gabadhaada. Waan ku baryayaa igu yeedh Sahara. Sahara waxay tagtay dugsiga, waxaana dhacay jaliskii galitaanka. Waxaanad ka helaysaa fasalka. Faadumo hooyadeed waxay u soo orday xaggii dugsiga. Waxayna soo gashay dugsigii iyadoon eegin xitaa ninkii iskuulka ilaalinayay, kaasoo isku dayay inuu joojiyo iyada. Waxay u soo orday xagga iyo fasalka Faadumo. Waxay qaraacday albaabka, waana laga furay. Maxaad sidan ugu soo gashay fasalka? Haway gabadhaydii Faadumo. Faadumo waa ay maqan tahay. Waxay eegtay safkii Faadumo ay fadhiisan jirtay, waxayna aragtay booskeygii oo madhan. Waxay u timid Sahara. Miyaanad wax iskula akhrisanayn gurigiina shalay toole? Maya, iimay iman. Maxaad telefoonka iga qaban weyday? Kaamaan qaban telefoonka sababtoo ah waxaan malaynayay inay Faadumo ay soo qaraacayso. Waan islaynay iyada. Waan islaynayaa. Haway gabadhaydii. Istaji Marwo, waxaan kuu soo qaadayaa galaas biyo ah. Maya, ma rabo. Faadumo hooyadeed waxay u soo orday xagga iyo askarta si ay u gaadhsiiso warka, kaasoo ahaa gabadhaydii la waayey. Waa lay soo wacay. Degdeg baanan ku imid. Waxaanan bilaabay inaan macluumaad ka qaato iyada. Waxay ii sheegtay wixii dhacay markii hore. Ma waxaad tiri way islaayeen? Oo maxay isku laayeen saaxiibadeed? Helitaanka sababta waxa uu noqon doonaa kii inagu haga helitaanka gabadhaada. Waxaan tagay gurigii Sahara.
Waxay ka furtay hooyadeed. Waxay tiri fadhiiso dembi baadhe. Waqti yar isugu waxaan kuu wacayaa Sahra. Maxay isku laayeen Faadumo iyo Sahra? Waa shay iyaga ka dhexeeyay, kama warrami karo. Iminkay ku imanaysaa weydii iyada. In yar kadib Sahra ayaa soo gashay. Way fadhiisatay. Waxaanan bilaabay inaan ka xaqiiqsado iyada. Goorma ayay ahayd waqtigii ugu dambeeyay aad aragtay Faadima? Markii hore waxaan ahayn kuwo wax ku wada akhrista fasalka keliya, laakiin ma arag iyada tan iyo markii aan kasoo baxnay dugsiga. Ma garanaysaa halka ay tagtay? Maya. Waxaan ahayn kuwii isku cadhaysan. Sababta? Kuma sheegi karo. Haddaad ii sheegi weydo waxaad noqon doontaa qofka ugu horreeya ee looga shakisan yahay waayitaankeeda. Waxaan ku dhaaranayaa inaan garanayn meesha ay tagtay. Faadumo waxay jeclaatay wiil xun. Waxaana ka waaniyay inay iskaga fogaato xiriirkan xaaraanta ah. Laakiin waa ay diiday inay dhegaysato. Ma u sheegtay hooyadeed? Waxay Faadumo igu dhahday inay hooyadeed tahay qofka ku dhiirigelinaya inay nolosheeda ugu noolaato sida ay doonto. Sababtan ayaan isku leynay ugana dhahay. Xilliga aad ka toobad keento waxa aad samaynayso ayaan saaxiibo noqon doonaa. Waayo wiilka aad sheegayso? Waa Daariq. Waxaa lagu yaqaanaa akhlaaq xumo iyo cabitaanka khamrada. Waxa uu ku nool yahay magaalo noo dhow. Wuxuuna halkan u yimiday inuu wax nala dhigto. Waxa uu karaystay guri ku dhisan farmasiga wadada dhammaadkeeda. Wax kalood ii sheegtad haysaa oo taa ahayn. Waxaan u maleynayaa inay intaa tahay. Waxbaan xasuustay. Daariq waxa uu rabay inuu sameeyo xaflad marka uu dhammeeyo imtixaanka kadib. Ma garanayo inay kuu faa'iideyn doonto macluumaadkani. Haddii aad wax kala xasuusato i soo wac. Waxaanan uga soo tagay lambarkayga. Waxaan u soo dhaqaaqay xaggii guriga Daariq. Waa uu i soo dhaweeyay waxaana la joogay wiil kale. Waxaan ku yidhi waa ayo. Waa saaxiibkay Samiir. Goorma ayay ahayd waqtigii ugu dambeysay aad aragto Faadumo? Mar hore, markii aan kasoo baxnay iskuulka. Waxaan igu tidhi waxaan wax la akhrisanayaa saaxiibadii Sahra. Indhaha ayaan ku baahiyay qolka. Waxaanan arkay saxni ay ku hadheen waxoogaa kackaca. Ma xaflad ayaad samaysatay? Haa, xaflad ayaan samaystay shalay toole. Laakiin waa ay diiday inay igala soo qayb gasho. Miyaanad doonayn inaad dhigto imtixaanka kadib? Waan bedelay waqtigii xafladda. Waxaanan ka dhigay ilaa iyo imtixaankan darajo fiican ku baasayno. Waan la sii sheekaystay. Wax naxdin ah kama muuqan wejigooga. Waxayna ahaayeen kuwo degan. Markii aan soo baxay, waxaan ogaaday in farmasiga ku dhisan lahaa kaamiradii ilaalada farmasiga. Waan u soo galay. Waxaanan arkay ninkii ka shaqaynayay. Waxaanan isku dayay inaan arko wixii dhacay. Waxaanan arkay Faadumo oo soo galaysa guriga Daariq shalay toole. Waxaan idhi, waxaasuu ahaa wixii aad qarinaysay Daariqow. Ma aanan dhamaysan cajaladda. Aanan rabay inaan arko inay Faadumo kasoo tagtay guriga mar hore ama in kale. Laakiin waxaa iga soo dhex galay wicitaanka telefoonkayga. Dembi baadhe. Waxaa layna soo gaarsiiyey inuu gaadhi istaagsan yahay wadada dhexdeeda. Waxaana gaadhiga laga helay kiishash madow. Waxaana kiishashka ku jiray meydad la jarjaray. Waxaana uga shakeynay inay Faadumo tahay. Haye degdeg ayaan u imanayaa. Saaxiibayaal ayaad u malaynaysaa inuu kiishka ku jiro. Daariq ma laga shakin karaa? Mise waxaa jira shay ay Sahra qarinayso? Mise hooyadeed ayaa geysatay dembiga? Maxaad u malaynaysaa inay Faadumo ku dhaceen? Fikirkaaga kumentiga nagula wadaag.